daawadayaal halkan waa TV-ga qaranka Soomaaliland laantiisa waqooyiga Mareykanka waa wariye Saciid Jamaal maanta halkan waxaan ku qaadanaa barnaamij waraysi oo aan la yeelan doono laba aqoon-yahan oo kamid ah madaxda maamulka Khaatumo oo qaybtan Mareykanka oo maanta halkan aan ku soo casuunaysaan su'aalo ugu weydiino shirka ka socda aynaba dhaxmaraya Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo sababaha uu ku yimi iyo cidda soo qorshaysay iyo waxa laga filayo iyo shacabka iyagu laftoodu taageera Khaatumo aragtidooda siday tahay su'aashii intaan gelin marka hore ku soo dhawaada TV-ga qaranka Soomaaliland waad maasantahay Saciid su'aasha warsan weydiinay waxa weeyaan shirkan hadda qabsoomay labada geesood ay isugu yimaadeen ilaa goormu soo socday sidaan sheegnay wuxuu ahaa hadda mid ku ah dadka kadis marka hadda kugu soo horeysay adiga bismillah shirkani ma soo socdo muddo fara badan sameyntii Khaatumo runtii hadafkeedu wuxuu ahaa inuu noqdo maamul runtii mustaqil ah oo siisa u taagan oo dawladda dhexe ee Soomaaliya qayb ka noqda desaad ogtahayna hadda muddo dhisnaa ka horna SSC baa dhisnaa laakiinse waqti hawsha markaanu soo wadnay duruufo fara badan na la soo wada maray waxaa noo muuqatay in aanu wax kasta inta xabad lagu raadin lahaa bal marka hore wada hadal lagu raadiyo saasaan dastuurkii taleex markii la sameeyana lagu qoray markii dambe sax dheer loo soo wareegana loogu qoray oo ah in geeska Afrika aysan u baahnayn xabad dambe iyo dhig dambe oo daata in allaale intii lagu heli karo wada hadal saasa lagu wada qaatay saasana loogu sameeyay guddiyo dastuuri ah inay hawshaas ay u qumaan hawsha oo la qaatay oo runtii nabadda aan wax kasta ku raadino oo danta maslaxadda labada ummadood oo bay ka dhalatay way waxaan ku weydiinayaa Rashiid Maxamuud Xambuus oo ah gudoomiyaha Khaatumo ee Minnesota wada hadaladan imika u bilowday labada garab u bilowday Soomaaliland iyo Khaatumo bilowday ma mid iyaga dhexdooda ka dhashay baa mise waa mid bulshada caalamka lafteeda ay ku leedahay lug oo ay ku bushkarisay si ay wada hadlaan walaal waad mahadsantahay waa su'aal fiican wada hadalladan runtii cid banaanka ka soo barashar gareysay Dr. Ali Khaliif madaxweynaha Khaatumo ayaa maanta xataa press conference BBC-da ka sheegay oo yiri cid dabadda naga soo amartay ma jirto annaga iska iyaga iyo qolada Soomaaliland oo iyana u heelan aan isla garanay inaan kulanno ma aha wax dabadda cid ka soo abaabushay sida uu madaxweyne Ali Khaliif sheegay waan gartay Soomaaliland saan la socono muddo 5 sanadood ay soo taagnayd hal mabda'na uu taagnayd ah inay noqoto markii ay ku guul dareysteen inay wada yeeshaan koonfur maamul si cadaalad ah wax lagu qaybsado oo markii la midoobay maalmihii hore soo bilowday ay go'aansadeen inay ay yeeshaan dawladoodii la soo noqdaan Khaatumana iyaduna waxay oo markii hore SC ahayd ay mabda' aaminsaneyd ahaa inuu ay Soomaaliland aanay ogoleen mabda'eeda hadda maxay isbedelay oo mowqifkii hore iska bedelay waxaan ku leeyahay horta cadaalad xumada Soomaaliland dadka ka soo jeeda ay tirsanayaan annana waanu ka tirsananaa dawladda xamar joogta haddaanu reer Khaatumo ma aha intii dawladda siyaad bare dhacday intii ka horeysay waa intii dawladaha Soomaalida ah ee hadda macbalka lagu sameeyay la abuuray 1900 iyo 2004 markii bay dhabal soo fariisiyay ilaa iminka intii wixii dhismay baanu xataa anagu qudhayadu aanu dulmagii Soomaaliland ka cabanaysay ku qabnaa oo maanta ka socda shirka ay ugu yeeraan madasha wada macnaha madasha qaranka ee lagu qaybinayo dhismihii dawladda 2016 madaxweynaha cusub la dooranayo baarlamaanka lagu soo dhisayo saad ogtahayba reer Khaatumo banaanka ka taagan yihiin oo dadka isku magacaabay madasha qaranka Soomaaliyeed baa ka soocay oo yiri
dad gobollo kala jooga idinka haydin matalan sida Puntland Garowe oo kale marka horta cadaalad xumadaas Soomaaliland loo geystay ay tirsanayso anana waan ka tirsanaysaa xamar laakiin cadaalad xumada naftirkeedana de Hargeysana kama sugayno inay nagu samayso marka hore anagu dad feejig baan nahay dhulka iyaga iyo dadka iyagana dantooda ilaalinaya marka haddii Hargeysa ku dheedo ay muujiso cadaalad xumo de ogow dagaalkeedii ma dhamaan waan gartay Cabdirashiid Macalin Faarax ma la oran karaa mowqifkan Khaatumo ee isbedelay wuxuu yimi kadib markii ay ka soo quusteen xamar iyo maamulka jiray oo xitaa ay ka waayeen kaalmo xitaa gacan dhaqaale xitaa ka waayeen runtii waa la oran karaa ma inkarayo waayo anagu hadafka aanu lahayn waxay u lahayd marka hore annaga oo xor ah oo maamulkeedii maadaama xitaa 20 sano oo Soomaaliland ay jirtay dadkaygu aanay wax horumaraba samaynin runtii dib u dhac badan ku dhacay in aan runtii hawshiisa saa u dhamaysano dowladda federaalkuna maadaama ay u dhaaratay madaxweynuhu u dhaartay qaranka Soomaaliya jiritaankiisa iyo isku hayntiisa inay waajib ku tahay inuu gacan naga siiyo laakiin anagu inaanu jirro dowladda federaalku inay naga caawiso oo hadafku ahaa iyo markaa maamulkiisna aan wax la dhisanay oo xataa qaab ehelnimo aan markii hore u binnay iyo qaab midnimada waddanka in lagu dhaqmo labadaba runtii waxaanu kala nimid faranban annaguna xaywilka dhamana naga dhacday koonfurti oo wixii aad ka cabanaysaa lafteeda wax la mida nagaga soo baxay marka waxaanu sameeyey warbargeela warf ma lagu dayo warbarqaladana meel bay istaag ku yihiin idinkuna halkana istaag ku tihin waba talayna isku beeri kartaan oo ismaqli kartaan at least bilxiwaar ilaa dad waxay ka dhexeeyaa baynu nahay degaan iyo ahal iyo wax kasta ah oo isku dhaqan ah warbar arma loo fiican yahay ninka maraykan ah Djibouti markii lagu heshiisay Soomaalida niman West Africana hotel Djibouti kula jiro markaasay kana Ingiriis ka soo hadlaan kana Ingiriis ka soo hadlaan markaasay hadhoon u kala jirto waa laba Soomaaliya xitaa business wala marka inaa taa dhaafno oo ayna noo kala turjumayno balina soo fadhiisano warana waxa ku xaqanta ana waxana ku xaqana waxana sax ma aha ee waddan wada mari karnaa shacabka taageersan Khaatumo oo runtii aad ugu soo horjeeday Soomaaliland mabdaceeda ugu soo horjeeday maadaama tahay adigu madaxdii tahay oo isagu maqalaa aad labanaad ka mid tahay oo hadda u socday qoran socday Khaatumo tahay haddana aad ka mid tahay guddiga qabaqaabada shirka aynaba iyo hadana u soo jeeday bas leedahay in wad qancin karaysa shacabka iyo fahmi karta inay qaataan wixii ka soo baxay shirka horta Soomaalidu waxay tiraahdaa gari laba nin kama wada soo ilmaha Hargeysa ku dhashay ama 10 jir ah markii qaranka soo galay oo ilaa iyo maalinkiina aaminsanaa jamhuuriyad baa tahay Soomaali oo ka go'day dowlad madax bannaan baa tahay laftiisa maanta sida loogu qanciyo war dowlad ma tihido xitaa baasaboorka lagu shaqaynayo dhibkeeda leedahay shacabka reer Khaatumo oo taariikh badan xigsanaya iyo daawish iyo Ingiriis oo la dagaalameen iyo Soomaaliya wax ka ahaan jireen iyo dhulka intaa leed ka tanaasula wixii niyo damba ay u sheegtay warbal at least aynu hor fadhiisano wax la qaybsanana iyaga lafteeda waa ku culista soo labada qolo waxa u taala hawl adag oo runtii u baahan in shacabka la masleeyo oo lagu xisbiyo la masleeyo shacabka wixii danta u tahay waxna waa caadifad waxna waa reality of the ground soo inaynu xaqiiqada wajahno oo geeska Afrikana macna ka yeelano Soomaalida meel kasta joogtana badbaadin awal bal dhabar inaga waxayni anu waan qabaa oo aqalku soo noqdo oo laga baxo waxyaalaha emotionka Rashid waxa ku jaadiga maamulka Puntland oo markii hore dadka ka dhisteen imika aad ugu hadlay shirkadan والفيديو كسر كذا سألوا على الكلام ضد إنه بيش الباطني ويكتسين مكا ما لقيها بيني يني عقبت النقطة الخاص أنا waxaan qabaa dee horta dacaad way sidoo kale lacagna way soo dirdir karaan dad inay ilaaliyaan ama qayla ka sameeyaan laakiin dhulka gobolka Sool oo xuduud la leh
puntland 1 inch puntland ma xukunto dowladana kama joogo dhaqaale kama joogo hawlgal kama jiro marka si ay wax uga bedeli karaan waxaa dhulka bannaanka yaalla aad bay u adag tahay waxa ugu weyn ay samayn karaan inay dacaayad sameeyaan oo dadkii ku abuuraan xamaasad dee aan waxba u soo hoynayn waa puntland waxaa ku caan baxday inay dacaayad fiirso oo dadka reer khaatumo ay runtii iska hortaagto meelaha iyaga dantooda ku jirto annagaana dowladdiina meelaha ka yidhaahdaan marka uma jeedo uma arko inay ku leedahay wax weyn keeni karto waxa puntland qaban karto awoodda ugu badan ay samayn karaysa waxay ahayd inay yidhahdaan xildhibaanada baarlamanka annagaa usoo xulaynaa sidii labada nin ee walaalaha abdishiid macalin marna uu sheegay waxay ahayd in dee laba nin reer puntland oo midna soomaaliya prime minister ka yahay midna garowe madaxweyne ka yahay uu yidhaahdo 4.5 waan qaadanayaa haddii gobolka sool iyo sanaag iyo xildhibaanada federaalka loo soo xulayo anigu aan qaybinayo marka dee niman caynkaa ku shaqaysanaya weeye oo maaragtay juhdiga intaa la gelinaya inay dadka kan miiska hoostiisa geliyaan marka dee waxaan ku dari lahaa socodka raalliya waa sax inay ka qayliyaan markii khaatumo la sameeyey conventionka ugu horeeyey aan ka hadlayay baa waxaa ka hadlay ninkii la odhan jiray bardacad hadda nin da runtii ragga SDF ahaan jiray oo waliba cumar maxamed reer galkacya wuxuu yidhi khaatumo laba qolaa diidan unbaad diidi karta qof wuxuusan lahayn doonaya iyo qof khaldan oo meel kale u socda garowe marka inay arinkan ay dhibsato waa wax iska cad obvious sababtoo ah waxa weeye in lagu yidhaahdo laa haaulaa'i walaa ilaa haaulaa'i somalilandna ma tihid puntlandna ma tihid talena gacankuguma jirto magacaagana anaa isticmaalaya mana tashan kartid okay sadka soomaaliya 4.5 lagu qaybsado qabiilkan maalan aan wada wadaagnana wixiisii anaa laga hoos fadhiisanaya intii kalena ugu barakaysay de haddii la yidhaahdo hadduu arkay maanta inuu beri waayayo caadi qofkii waa ka damqanaya buu ku waayayaa waana waxyaalaha nagu kalifay inaanu anagu xisaabtayda dib u xisaabino waayo dee laba loo geeya labo waa 4 boqol ma ahaan karto anagu bari kama dagaalami karo galbeed kama dagaalami karo koonfur kama dagaalami karo cir kama dagaalami karo anagu waxaan u baahannahay jiritaan at the same time waxaan u baahannahay waxa ugu yaro xuquuqaan leenahay inaan helno marka waanu ka filaynaa inay ka dagaalamaan way ku mahadsan yihiin laakiin dee wax kama qaban karaan waan gartay saad sheegtay intaasoo qaybood uma qaybsami karaysaan oo doon walba kama dagaalami karaysaan in mowqif qaadataanna way fiican tahay laakiin adigu noogu noqonaya ilaa goormay soo socdeen barnaamijkan aad maaragtay ku aragteen inaadan dee u qaybsami kara intada qaybood ay tahay inaad somaliland la hadashaan oo wixii dantu ay ka dhaxaysa ka wada hadashaan oo aad ilaa goormeed ku dhalatay xaggeese ka bilowday dadka qaar waxay leeyihiin Ethiopia ayay lagu wada hadlay oo wada fadhiistay marka qaar waxay leeyihiin Kenya ayay ka soo bilowday iyo Nairobi ka soo bilowday bal maadaama dad ka mid tahay guddida qabanqaabadaba bal waxoogay anaga iyo dadka daawanayaba noo yeela sharaxo runtii horta waxaa weeye markaan dib ugu noqdo mandaqadan geeska Afrika international community-ga hadda waxay qabaan enough colaado dambe laga horiyo iyo dhibaato dambe socota ma loo sii baahna anaga saad u ogtahay runtii labadan maamul waliba Somaliland iyo Puntland-tuba dhib way nagu hayeen qoladan waa siyaasadeed dhulna nagama haystaan hadda laakiin qolada qoriga nagu haysa waa Somaliland oo de runtii inagoo dad ahelaho isku degaan ah oo taariikh badan inaga dhaxaysay haddana dee qori baan kugu xukumaya oo waxaan kaa kaxaysanayaa dad yar intaan hal qof meel ka haystaan kaa kaxaynaya anaa ku xukumaya runtii dee horta nooma cuntamayn waxaa marka anaga shardiga nagu waajib aha inaan ka dagaalano oo markaas aan howlgal ka samayno saan kuu sheegay markaa dee dagaalkii wuxuu nagu noqday dagaal baaxad weyn oo dheer oo dhinac kastana nagaga taagan asalkii fikirka ahaa jiritaankayga iyo xuquuqdeeda waa meesheedii laakiin waxaa la jecel yahay inta badan in wada hadal lagu xaliyo adduunkuna intaas u qabaa intii qori lagu raadin lahaa in wada hadal lagu xaliyo ilaa markii talax la sameeyeyna declarationku wuxuu ahaa wixii nabad aanu ku helino annagu colaad ku raadin mayno berigaa hore waxaa diiday Somaliland diiday oo xataa Mille Zanaawi intuusan dhiban xitaa wuxuu yidhi khaatumo iyo aan su keeno iyo Somaliland laakiin demo waxaa yaalay meeshii
in la Soomaaliland dawlad noqoto iyo ma noqonaysa meesha taalay horta in la wada hadla ka horeysa fiiri Saad walaal marka laga hadlayo international treaties-ka horta aan wada hadal waa aan heshiino haddaad albaabka halka soo xidhid oo aad u aragtid qofka inaad maquuninaysid adigu ama gogol baa fidiyay buu madaxweynuhu barigaas waad ogeyd gurub buu ka bilaabay marka formaatku ay qaadatay Soomaaliland markaa sax ma ahayn laakiin waqtigu wuxuu baray iyaga annagana na baray inaan qofna qof maquunin karin xaq aadan lahayn aadan qaadan karin dhul aadan lahayn aadan ka talin karin unless uu jiro concession taxadda in hortaalana taa weeye ta u baahan inaan xitaa laynoo yeedhin inagu aynu garanno na taa weeye waayo hadda inaga difference inagu dhex jiraa ma jiro go'itaan iyo go'imayno iyo hawlahaasi waa arrimo masiiriya waa arrimo wada hadal lagu xalliyo waa arrimo international community-ga inagoo isla xallin karno Soomaali ay ka tahay qaybo xitaa wax inaga inoo gaara de ma aho hadda haddaynu xitaa inagu isu nimaadno inaan waa go'inaas kama go'i karno xataa waayo waxani qaran bay ku xiranto de international trust baa jiro oo regional powers baa jiro oo Arab League baa jiro oo African Union baa jiro waxaasoo dhan integrity-ga Soomaaliya meel bay saareen Security Council-ka markastoo Soomaaliya ka hadlayaan meesha inagu aynu salaada bismillaah faatixada ku furano waxaa lagu furfuraa integrity-ga Soomaaliya waxa weeye waaba lama taabtaan marka arrimahaas horta wax badan oo gacan inaga inoogu jiraba ma jiraan waxa gacan inaga inoogu jira war sidee Ilaahay baa meesha nagu abuuray ehel waan haye si cadaalad oo ehelnimo ugu wada noolaan karaa waxyaalaha kale oo masiiriga aynu isula fiirin karaa marka muddaas ilaa iyo anagu markaan khaatimo abuuray mar kasta principle waxa noo ahayd wada hadal waayo in wiil burca u dhashay iyo wiil laashcad u dhashay isku dilaa xigmad bay ku jirto waa gartay Rashid waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Soomaaliya wax badan baa inaga dhaxeeyay dawladnimo inaga dhaxeysay hantiba inaga dhaxeysay maamulkii 60kii waatii dawladda markii la sameystay ay qaateen wixii oo dhan qaateen maantana sidoo kale ay u haystaan boosaskii ugu waaweynaa madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo house speakerkii iyo everywhere xitaa hay'adihii dhammaan iyaga haysta maslada iyagaan doonayn ba dadku ay isu yimaadaan oo ay wax wada qabsadaan oo على خليفة سمر بكدواتي وكهل لي ميل شو كهل لي والله الهرت وارن وحوي ويأمو قطع وح معركتي لقارن كرامة للصوبة صلاح كرامها وحوي أنا كما أركو حمر ربيتان إن سومالي وين أو ولا أو ودنك لفتيسي دولة نمديسي تلاديسي ولا قيب سنة ما أنت ما شرتو كوح با حمر شوكته مدحوينها كوحدة waxa la yiraahdaa damul jadiid hadda circle-kiisa ku jirin waxa weeyaan mabda dawladeed iyo Soomaalinimo qarannimo kuma shaqeeyaan waxa ku shaqeeyaan saaxiibtinimo iyo group bay ku shaqeeyaan taana waxa ka sii weyn dawaadiga arkayo ilaa berigii imbagaati lagu soo dhisay wax Soomaaliya maanta ka jira 4.5 iyo qabyaalad baa lagu sameeyay ma garanaysaa qabyaaladii iyada qudheeda dadka marka la yiraahdo la soo xulo dad wadaniyiintu ay ama heavyweights oo wadaniyiin raba oo dalka iyo dadka isku soo celinaya wali meesha kama ay muuqan marka runtii anigu hadaan u hadlo reer waqooyi hadaynu nahay de ama Soomaaliland ka soo jeedo ama aan awdal ka soo jeedo ama aan ka soo jeedo gobolka Khaatumo Soomaaliya sanaag yacayn de koonfur waxba runtii hadda aan dadka ugu gacan hadiya igama muuqato wala gacan marmar taagan badan ba Khaatumo isku dayday inay isku xidho ya Sacuudiga halba ku dari lahaa oo raaliya waxaan qabaa shacabka reer koonfureed runtii xamar anigu aad badan uma hayo runtii dad Soomaaliyeed oo wanaagsan weeye laakiin akhtaada dhacday waxa kamid ah 60kii markii la isku darayay waqooyiga waxay ku tageen caadifad waxa ma qoreen waxa ma diyaarsaneen nationalism بالعكس aan kugu daray dadkii aan hubsano yira kaadino reer Solbe haya ya la Ali Grad ya la Ali Grad Grad ku ha Ali Grad oo dhahan galbeedka ay dhahan la Ali Grad sugumayna isna war umulba waxa la baxnaanaya 40 bari dalaas baxnaano kaadino alis waxaan la tagnaa ku diirgarowno aynu ku diirgarowno caadifada ku tagno caadifadii waxay keentay xamar waxa laga qaadaa interest xamar qaabka waqooyiga ma aha qofkan waxa weeye maxaan maanta aanu ka helaya iyagu wuxuu markaa way jamacsadeen wuxuuna way urursadeen kadibna adigu box baad gashay boxkii 60kii la galay markii dambe qaabkii looga sabixi lahaa qaab nidaamsan ma noqon
haddiiba laga soo baxayo ama wax loola qaybsanayo ama loo saxayo 91kii haddaba markuu burburku dhacay Soomaaliya way burburtay central government waa la waayay maxaa soo dhacay Soomaaliland SNM oo markaa waqooyi soo gashay runtii anu waan joogay markaas 91kii waan joogay la saanood nabad fiican baa laga sameeyay dad ehelaho aan wax dhiba dhexmarin awal madaxa la sugalay laakiin go'aan fiican bay qaateen inaan markaa meesha dagaal kale la sii wadin oo la soo afjaray laakiin mid baa seegtay waxaa seegtay 91kii hadduu odhan lahaa cigaal ama siila ama cabdiraxmaan tuur ilaaha u naxariistee war Soomaaliyey koonfuray shalay waadna baaba'sateen dhibaato badan noo geysateen waadna dulmideen waxaas waa iloone ilaa Mandela ba kii 27 years xabsiga galiyay buu iska cafiyay warkaalay Hargeysa Soomaaliya ana madaxweynaha caasimadda waa Hargeysa international community safaradu hay yimaadeen saad noo xukumaysan ilaa 60kii waan hadda xukumi doonaa anaga idin kala celinayna Soomaaliya maanta way shiri lahayd Nairobi iyo si u dhismeen iyo Zamana maanta way u dhismi lahayd Soomaaliya oo dhan baynu qabsan kareen marka khaladkii 60kii la galay kala galay 90 iyo koodii baa ka xun sababtoo ah caadifad markasta haddaynu wax ku dhisno meel ma gaarayno burco shirkiyadoon xitaa SNM oo dhan la waraqada xitaa ay wada qoraysi ilaa iyo cadiidiyo in qaran loo soo wada keenay ahayd markii cali mahdi lagu dhawaaqay marka arintii yar sii xumaatay laakiin shacab cadaysan oo gadowsan oo leh war waan soo daawanana haddii kale ku dhawaaqay inaan go'onay oo haay aan go'onay si u go'ona qaabka u go'ona ma isla wada socon xataa waqooyi wax isku raacsan yahay waa maya waxaan u dhisay caadifad okay caadifadii waxaan lahayaa 25 years wixii marka haddana in dib loo eego maanta fiiri nadar reer Khaatumaan dib baan ugu dhacay runtii mar garwaan aadnay mar Hargeysa qaar aadeen destruction baan soo galay taladii ma urursaneenba laakiin Soomaaliland talada u urursaneed guurtay leeyihiin baarlamaan bay leeyihiin xukuumad bay leeyihiin taladu markay ku urursan markay inay ku dhaaftaan maaha ay ka hoos baxdo in la yiraahdo okay war aynu ka wada hadalno maxaa suuragal ahayn maxaynu maanta qaadan karaa Soomaalidu dhammaan qaadan karayseenba hadda taa xitaa ka gaabiseen waa ka baxaya waxaad sameyn karayseen war bal waqooyi aynu si sax dadka ehelka u wada hadalno talada u wada rogrogno waxaynu ka badi weyno aynu yeelno xataa aynu inaga maamul goboleedo oo big ah Soomaalida kala markay isu timaado aanana war Soomaaliya miiska soo fadhiista anaga waqooyi dadka koonfur maanta maxaynu soo haynaa maxaynu wadaagi karnaa maxaynu wadaagi karin marka anigu waxaan qabaa still talaa hortaala caadifada aan ka saaro arrimaha masiiriga ah ahlul xal wal aqdina haloo daayo masiirka ummadda meesha boqolka sano soo socota aan isleenahay ka abay anfacaysana de aan dhigno sulhul Hudaybiya rasuulka kaleey salaatu wasalaam markuu galayay Umar wuxuu yiri intii dambe noolaa oo dhan istighfaarta Ilaahay aan wajista waxay ahayd inaan ka toobad keeno amar diidada rasuulka rasuul Allah miyana xaq ahayn marka la qorayaa ha sidee ma maartay aad u qaataa waxaan dulinimada iyo mowqifkan maartay hooseeya miyaa Ilaahay ku soo diray ma rasuulka miyana sax ku taagnayn laakiin se rasuulka vision kala u muuqday vision masiiri ah u muuqday inuu jazirada arab oo dhan xukumi doono oo Room qabsan doono oo Furs qabsan doono waa dhacday waayahay laakiin waxaan kuu sheegayaa caadifadu markii hore Soomaaliland iskama iman waxa ku timi san loo wada socono jabhadihii soo galay Soomaaliya wixii la isku oran jiray SDF iyo SNM iyo SPM iyo USC waxa lagu heshiiyay in qolobo meel qabato dambeeyay la isugu yimaado maamul la sameeyo si fiican laakiin SNM waxay ku dhawaaqday oo reer waqooyi kale u yeereen oo Burco lagu wada hadlay markii xamar laga dhawaaqay dawladda la suuqeen caalami askari taas waxa la oran karo waa khiyaamo kale weeyaan khiyaarta cudma kale weeyaan oo waxa weeyaan laakiin maxad ka jawaabin maxad ka jawaabin macaafada ka jawaabin dama hadii aan markii horeba aanay ka taagnay farmana ka taagnay oo waxa aanay hore uga weeyday oo 60kii ay dawladda iska wada qaateen oo imika waa dagaal burbur Burciye Hargeysa meel walba ka taalo ilaa meel burantay haddana kuwii xitaa dagaalka soo wada gasheen oo ka baxeen balankii laftoodii kulli waxa weeyaan de hawsheeda leedahay waxaan rabaa inaan su'aal kale ku weydiiyo oo oranaysa waxa jira rag adan ku weydiinaya rag waxa jira iyaguna laftooda aqoon-yahan oo madaxa oo dhulbahantaa oo jooga Soomaaliland badan ku soo jiray in badan idin baaqay idinka markii hore oo la warkaalaya oo ka soo qayb gala qaarkood ilaa waxa soo dhinteen raga ma sheegteen oo hawshan socotay processkan socda ma sheegteen ma la socdo moogin mise waa ما waxa ku leeyahay horta nidaamka kan markii la falanqeynayay ilaa shirkii ugu dambeeyay hadda Nairobi ka socday waxa weeyaan in marka hore talada deegaanka Khaatumo
dadka ka soo jeeda xataa hadduu ku jiro imika already Somaliland la mideeyo oo ismadii iyo cid kasta hawsha ay ka qayb qaadato waayo dadkii aan wada socon haddii imika madaxweyne Cali Khaliif uu yiraahdo aniga wasiiradeedu Hargeysa tagaynaa shacabkiina lama socdo wixii xoogaa wali wajiitan baa keenaysaa iyo maaragtay in khilaaf cusub bilaabmo iyo dadkii inuu ku sii jiro juhdi dheeraad iyo burburkii iyo maaragtay jahwareerka siyaasadda marka guddiga uu Cabdirashiid ka mid yahay waxa weeyaan ujeedada waajibka ugu weyn ee saaran waxa weeyaan in khilaafka dadka horta laga dhex saaro heykal siyaasadeed oo midaysan lala yimaado kuwa Hargeysa jooga haday talo wanaagsan hayaana dee runtii iyo qudhooda miisku u furan yahay oo dee nina kama saari karo dhalashada iyo deegaanka inuu ka soo jeedo talada waxbay ku leeyihiin anigu mar walba waxaan aaminsanahay talo midaysan in marka hore wax walba lagu raadiyo hal qodob oo si kale ku daro adar haliya runtii nimanka hadda waqooyi Hargeysa jooga oo ku qanacsan mabda'an maaragtay inay waqooyi yihiin Somaliland yihiin oo ay ku jiraan waxay ku jiraan xukuumad laakiin xukuumadda ay ku jiraan sool iyo sanaag iyo cayn waxba kuma leba waa un la sheegtaa dhulkaas laakiin dhul hadda mucaahadana kula jira dee waa Somaliland doodeedana way ka muuqataa mar kasta inaysan baarlamaanna ugu jirin wasiirana ugu jirin wax qaybsana ku jirin iyagu waxay ku qanacsan yihiin inta aan ku ognahay dee wax kala garanaysa in khaatumo ay ku soo biirto dibna loo wada hadlo oo laga wada hadlo maaha kaliya wax qaybsiga xitaa masiirka ummadda iyo Soomaali oo dhan gabi ahaanteedba annagu runtii dadkaygan hadda wada hadalada ku jira ee khaatumo jaaka marmo wixii soo baxa xitaa anagu wax kama qaban doono waxba ku dooni mayno marka qofka hadda position haysta anagu positionka uu haysto maba ku haysanaba duulana kuma nihin laakiin anagu waxaan rabnaa ummadan anagu aanu metelana ee khaatumo حقوق bay leedahay interest bay leedahay muqawimaad bay leedahay waxyaalo lama dhaafaan ay leedahay structure baanu ugu talagalnay in doorkabay ku leeyihiin iyagu laakiin qolo madaxdan joogta Hargeysa joogta Somaliland ka midkii door intee leeg bay ku leeyihiin waxa ku leeyihiin doorka qof kasta oo reer Khaatimo ay ku leeyahay anigu in my opinion hadii iyaga gaar wax loo siin jiray because way soo duseen dee dadkii hadda waa la yimi weeye marka waxa weeyaan wixii aad xaq u yeelatid ama beel hoose ha loo qaybsado ama kartidaada adigu ku hel boos laakiin waxa ila mid tahay dee haddaan meesha cadaalad ka jirin iminka Somaliland dee waxa ila tahay kuwa Khaatimo hadda wada hadalka rabaana haddii arki waayaan dee wanaag maaragtay iyo israabitaan iyo siyaasad midaysan dee waxay ila tahay waa jugjug meeshaadii joog kulli waxaan filayaa Somaliland waa la wada leeyahay waana waxa runa reer Boorama hadday madaxweyne qabteen wuxuu diidayaa reer Laascaanood inay qabtaan oo halkii ugu shareysay ma jirto su'aashaan rabeen ku weydiiyo anagoo gabagabadiina ku jira maadaama madaxdii tihiin hawshan hawl marka dee u baahan dadka in orientation la inform gareeyo dibadii gudaba taageerayaashu mid ku jirta in dadkan dibadaha joogay ee Khaatumo taageeri jiray inaad ka dhaadhicisaan mowqifkan iyo dariiqan cusub aad qaadeen horta runtii Khaatumo waxay leedahay jaaliyadaha ugu organize garaysan adduunka KDO baa leedahay gudoomiye leedahay gobol kastaana gudoomiye uu leeyahay Cabdirashiid Xambuuse waa Minnesota chapterkan ugu weyn weeye runtii waana ragga think tank ah oo maartay runtii ajalka wareejiya dhibna kuma noqoto anagu message-ka inaanu muddo kooban ku gudbino laakiin waxa uu hor yaala message-ka aan gudbino noocee weeye dadkayga waxa jira waxaan ku qancay iyo waxa ku qancayaan anagoo og waxay u baahan yihiin anagoo geed dheer iyo geed gaaban insha Allah u fuuli doona in ay noqoto win-win situation waayo anagu kuraasba ka hadlamayno inta badan adduunka saddexaad kursigu macna ma sameeyo laakiin macnaha waxa sameeya war ummadani ilaa ka tuulo ilaa ka magaalo xuquuqday lahaayeen infrastructure-koodii iskuulaadkoodii caafimaadkoodii amnigoodii horumarkoodii ma heli karaan taas uma anaga noo muhiimsan shacabka reer Khaatumo ee jaaliyadaha waa dad isku xiran waa hal unug concern badanna way qabaan xaq bayna u leeyihiin laakiin marka aanu wada hadalkana sii wadno waxyaalaha laga wada hadlaya iyo waxa ay u baahan yihiin aan isku cadeyno waxaan rajayn doonaa inay wada aqbalaan su'aal kale ku weydiinaya marka wada hadal socdaan ee la heshiiyo in badan baa tiraadeen goboladii waa ciidamada jooga Somaliland waa maamulka dad qayb ka mid ah noqotaan oo lagu heshiiyo
cabashadan ah ciidamada jooga ma haraysan marka mas-uuli waxa weeyaan ciidamada haystaan la oranaysan والله هرت ciidamada waxay ku xiran tahay wajiga ay leeyihiin ma ciidamo dadka deegaanka ah ka soo jeeda miyaa mise waa ciidamo qaran oo qaran qofka identity-giisa fiiri marka horta aan ku leeyahay ciidamada jooga ciidamada imka Soomaaliland ee jooga 13 goobood de identity-gi reer deegaanka SSC maaha waa ciidamo laga soo abaabulay Soomaaliland Soomaad garan hatta kuwa Soomaali gobolka u dhashay oo askar hoose ay hadii ku jiraan haddana identity-gi dadka iyo ciidanka qarankooda ma aha marka hore wax weeyaan dadku waa inay identity-ga helaan sida ay khaatimo maanta identity-goodu u tahay sida adigu aad Soomaaliland identity-gaaga u tahay marka hore waa in qofku aqoonsigiisa ay ciidanku matalayaan oo ninkii uu arko inuu difaacayo cadawga ka ilaalinayo oo xuduudkiisa ay tahay markuu ciidanku soo maro meesha sidii Soomaaliya anigu aan ku soo koray laakiin kumaanku loo saabin jiray beesha dhubaanta oo ciidamada hubeysan oo technique wax walba haysta ayaa taagan oo jooga horta waxaan ku dari lahaa waa tafaasiil waa details qaabkee lagu heshiin doonaa maxaa laga heshiin karaa ma la heshiin doonaa hadda waa ciidan occupation meesha u fadhiya marka la wada hadlayana waxa ugu horeeyo oo laga wada hadlaa waxa weeye horta qof ku haysta si uu la hadlaysaa occupationkaas waxyaalaha marka ugu horeysa la oran karo waa prerequisite kadibna waxyaalaha masiiriga baa laga hadli doonaa kadibna wixii dhacay baa laga hadli doonaa kadibna waxa laga heshiin karaa laga wada hadlaya marka waxaan oran lahaa wada hadalna haddii la siiyo chance ay sii socdaan wax badan baa isbedelaya waqtiga xalin doone iyana ka hor dhacay shaashada ugu dambaysa sidoo aragtaan horumarka labadiina weydiinaya Soomaaliland haday tahay horumar dhaqaale siyaasadeed bulshadu sida ay isu dhaxgashay nabadda sida loo ilaalinayo aragti ahaan soo aragtaan anigu personal hadaan ka goorma sidii ku dambeysay aniga waxay ku dambeysay 2010kii horta iyo deemkana waa ka warhaya ama TV ka arag ama dadkii kala joogay ama asxaabteeda joogay ma garanaysaa wallahi aniga waxa ii muuqata ilbaxnimo badan baa la gaaray intii 20 sano la soo dhaafay ilbaxnimo ay keentay in caalamka lagu xidhmay ilbaxnimo keentay in iskuul la helo in jaamacada la furo high school laga dhigo meel walba anigu niman baan kula kaltabay aan xafiiska wada shaqayn jiray 2002 inama iimay warshido burca laga dhisayaa iskuule de qaran baan ka rabaa 300 baan siiyay markaan ku ninka habar jeclo inta xabadii soo qaadan lahaa qalan hay soo qaato marka wallahi horumar fiican baa la gaaray aan la dafir karin nidaam dawladeed baa laga abuuray Soomaaliland oo aan la dafir karin inuu ka shaqeeyo in dadkani ay dawladnimada rabaan oo heleen sida fowdo maaha meel fowdo maaha marka waa ugu hambalyeena anigu waxa igu dambeysay 96kii baa igu dambeysay su'aashaas waxaan uga jawaabayaa sidan waayo haddaan apple iyo orange isdhinac dhigo ma samaysmayo laakiin waxaan isdhinac dhigi karaa waa orange iyo orange haddaad leedahay Somaliland maxaad ku qiimeynaysaa adoo u eegaya Muqdisho waxaan oran karaa wax badan bay qabsatay at least isma cunayso habeenkiina waa iska lugeyn kartaa qaraxna kama dhaco dadkuna iskuulaadka way aadaan dibadaha waa looga yimaadaa stability macquulana way haysataa laakiin haddaad leedahay مثلا Rwanda oo kale markii uu ka dhacay genocide ka dambeeyay horumarka gaadhay ku qiimee ama leedahay Addis Ababa markuu Mila Zenawi soo galay ka bacdi wuxuu ka sameeyay ku qiimee ama Nairobi waxa gaadhay ku qiimee regionska dad i wadiin lahayd oo ka soo bilaabi lahaa 91kii waxaan oran karaa Somaliland dib u dhac weyn iyo jariima lagu kalay baa ka dhacday sababtuna waxa weeye sidii horeba aan u sheegay hadii ay masiirka ummadda Soomaaliyeed qaban lahaayeen hargeysana caasimad ka dhigi lahaayeen caadifada iyo xanaaqna laga saari lahaa ummadana itijaah sax la siin lahaa Soomaali oo dhan bay xukumi lahaayeen qarankii Soomaaliyeed oo dhan iyaga qaban lahaa Soomaalina maanta geeska Afrika muctaraf ka noqon lahayd laakiin waxaad moodaa inay dhufays galeen oo difaacna 25 years baad lagu jiraa goor dhammaan doona iyo meel hadii maanta oo waliba la sii baxay oo la sii lacagaysto xamar ay sii magac maskaxda sii furantay haddaad ka soo qoys ka soo taagteen 19 oo dadku ka dambeeyeen oo laakiin fiir walaal xamar maanta in la qolada ka hor qanacaan aad maanta soo qanacdeen si fiican sax laakiin mid ku oran lahaa maanta waxa aan ugu qabaa xamar wax badan gacanta ugu jiraan ba xamar maanta wax badan gacan ugu jiraan laakiin yaa xabaasha u ilay
markay iscunayeen adigu way ku urursaneed haddaad maanta adigu gacanta ku qaban lahayd maanta talada inagaaba gacanta ku hayn lahayn soo marka anigu waxaan ba qabaaba xamar hadda wax badan oo aynu ku eedayno dee maba jiro madaxweynaha maajiniba baa waardiiyey ogow hadda meesha lagu hayaaba lagu hayaa waayahay aad iyo aad baa mahadsantihiin daawadayaal waraysigeennii xiisaha badnaa intaas ayuu ku egyahay wadahadallada khaatuma iyo somalilan ee hadda bilowdeen waa san sheegnay waa bilow mudday soconayaan isbedelo badan baa imanaya wadahadallaa imanaya waxbaa soo baxaya waxaanu isku balan qaadanay inaan la socodsiino marba madaxda khaatumo iyo ku somalilan labadoodaba inaan soo casuuno oo marka qaar aan iyagoo isku dhafan aanu keenno si aanu su-aalo uga weydiino ilaa intaanu ka gaarino fuuturka iyo wadahadallada dambe insha allah aad baan idin salaaminaa cabdirashiid macalin faarax oo ah xubin buuhaan jiray ka mid ah G11 oo ahaa kuwii fulinta ugu sarreeyay khaatumo iminkana waxa weeye waa xubin ka mid ah guddida shirka caynaba ka socda weeyaan wadahadallada rashiid maxamed xambuus waxa weeyaan isaguna waa guddoomiyaha khaatumo ee gobolka Minnesota aad baan idin salaamaya aad ugu mahadsantahay wadahadallada rashiid maxamed xambuus waxa weeyaan isaguna waa guddoomiyaha khaatumo ee gobolka Minnesota aad baan idin salaamaya aad ugu wadahadallada rashiid maxamed xambuus waxa weeyaan isaguna waa guddoomiyaha khaatumo ee gobolka Minnesota aad baan idin salaamaya aad ugu mahadsantahay